maxamed mastari lamjad oo macallin u dhashay dalkaasi Tunisia waxa uu ka howlgalaa Muqdisho kooxda Muqdisho City ayuu leeliyaa maxamed lamjad mastari 13 bilood uu ku sugnaa kooxda kubadda cagta Muqdisho City MCC waxa uu ugu dambeyntii ku guuleystay horyaalka Premier League Soomaaliya haddaba macallinkan ayaa waxa uu yahay mid ka mid ah macallimiinta ugu nasiibka badan ee ka ciyaara gudaha Soomaaliya wallaahi horta farxad aad iyo aad u weyn ay u tahay asiga annagana ay noo tahay waa sanadkii ugu horeeyay oo kooxdan layliyo wuxuu guul taariikhi ah ka soo gaaray tartankii aan ka qayb galnay Confederation Cup dalka Zanzibar aan ugu qayb galnay wuxuu kaloo final yimiday koobka General Daoud wuxuu kaloo maaragtay maanta aan hananay horyaalka Soomaaliya Premier League waxay u tahay taariikh aad iyo aad u weyn waana maaragtay ugu mahadcelinaa macallinka shaqada adag oo qabtay asiga iyo ciyaartooydiisa waxaan leeyahay aad u mahadsantiin فضل من عند ربي سبحانه الحمد لله يعني ما جاتش بالحظ ما جاتش جات هم بالتضحيات وبالخدمه وبالشغل امنا بالقدرات نتاعنا ما كانش عندنا فريق يعني كبير برشا الحمد لله ما هاد لي horta nasiiban leenahay sax waay laakiin shaqa meesha imaatay waa shaqeynay waa dadaalnay ilaahay maad laacibiin juhdi badan ay galiyeen anaga markaan bilaaween horyaalka waa ogeedeen waxa ahayn kaalinta toddobaad aan ku jirnay laba dhibac aan wadanay laakiin juhdigan sameynay iyo dadaalka aan sameynay iyo waxyaalaha badan aan garoonkan ku bixinay ilaahay mahadiisa waxa way ciyaar badan aan galnay oo bareejo ah oo maxaan ka soo noqonay mar dhimashaan ka soo noqonay ilaa kulanka ugu dambeeyay gaadiidka dhimashaan ka soo noqonay taasna waxay cadeynayaan in meesha dhalinyaro ay joogto oo ka go'an tahay horyaalka inay qaadaan iyo taageero oo ku xiran dhalinyaradan oo markastan ay jecel kooxdooda maartay inay guusha iyo guuldarada ay taagnaadaan الحمد لله اللاعبين امنوا بالحظوظ نتاعهم وامنوا بالقدرات نتاعهم وصلنا عدلنا وكانت نقطه كافيه باش نفوزوا باللقب هذا Kooxda 13 bilood ayuu ku sugan yahay gudaha Soomaaliya ugu dambeyntiina waxa uu gacanta ku dhigay koobka horyaalka Premier League Soomaaliya waxaana uu u qaaday kooxda Muqdisho City waa markii ugu horeysay oo kooxda Muqdisho City minishibiyo 35 sano kadib ay ku guuleysanayso horyaalka Premier League Soomaaliya sax wallahi muddo dheer ugu dambeysay in magacaas Muqdisho maaragtay horyaal lagu qaado laakiin magaci xogaa gaabira galo in muddo way ka maqnaayeen saaxadda laakiin waa sanadkii labaad oo hadda aan ku ciyaarayno magaca Muqdisho City waana ku guuleysan horyaalka waxaan rajaynaynaa horyaalo badan iyo koobo badan inaan ku qaadi doono magacan dawladda hoose ee xamar insha Allah والله معلومه تاريخيه ما كانش يعني ما كنتش نعرفها الحق لكن بالطبيعه اذا كان والله تاريخ ذا اسو حسوس صرت ما اوغين نصيبا لا دي بساس تahay oo mudadan ay qaadin waana imaaday waxaana nasiib u leeyahay carabiga ninka carab ugu horeeyay ahay oo ma sha Allah hadda maanta minishibi u qaaday haddana waxaan sii rajaynayaa champion Africa aadno oo insha Allah waxaan rabaa meel fiican aan ka gaarno oo kooxdeena maarta aan soo guul aan la imaano ma rabno yani sidii kooxyaasha qaarkood ee tagayaan 7-6 lagu soo dhufanayo ilaahay waxaan ka rajaynayaa maarta garabkeena istaago anagana shaqo wanaagsan qabano insha Allah waxaan idinka rajaynaa iyo taageeraheena ina garabkeena istaagnaatiin oo markaas aan isku duubnaano horyaalka Premier League Soomaaliya ayaa waxa uu ahaa xil ciyaareedkii ugu adkaa 2020 waxaana uu ahaa mid ka mid ah kulamadii ugu xiisaha badnaa ee ebed la xusuusan doono horyaalka waxa ku loolamayay 5 kooxood oo kala duwan waana markii ugu horeysay oo horyaalka Premier League Soomaaliya 5 kooxood ay ku dagaalanto in muddo ah kadib kooxaha Muqdisho City horyaal ku guuleysatay kooxda kubadda cagta Elman Horseed dekadaha kooxda kubadda cagta Hegan ayaa ku dagaalamayay hanashada horyaalka Premier League Soomaaliya ase yeeshee sanadkan ayaa waxa uu ahaa mid kale oo ka xiiso badan sanadadii hore والله حل عيارات كان وحوها حل عيارات أدو أذك ودريم كرتان هذية هي سيد اللي سكود بجوجي يا قابك دبعها لوكال سري والله حل عيارات كان وحصلها هاي أما من سنة وحل عيارات كو أتكاي هوريالك الصومالية سببته وحاسكود بجوجي كوحة أدو تربضن أو كوحة بكوحة دي اللوز جرسها كوحة كلكفة إيدي سنة هذا أنا كوحة دي كوحة كلا هذا نوتاج أنت دبي يا لابد دبع وح عن كبرنا لك السري مركو دريم كرتا والله وحاوي هل عيارات كان آدي هذا وحاوي هوريالك أتكاي ومعناه وحاوي وحال سكال سري دبعة أو آدي وير ما دام إلهي أنو سورة جلية إنك جولي سنة لابد يكون سجالي طبعا 2020 إن شاء الله وحن رجينا سنة كسوة صعدة
iyo sanado badanba inaan guulaysan doono horyaalka Soomaaliya Premier League insha Allah hadduu Ilaahay idmo. والله إن هريال سنة كان رتب وحولها حماسة جونية هريال ذي الهرو هريال وليد ما ندعين كوح كلهم نقول ماذا أو كلهم كلا كوحنا نتيجة السكتو ورانتي كوح والبا أيضا سدح كلهم دميان بالله كلهم هريال كلا قاعد يجري ورانتي سبورت سومالي نهرو وصعدا وحنا حريق سوماليات يكون عكتا أو هرمرين تو سبورت كبر ورانتي شقاء ذا قبتين الحمد لله ورانتي نماهن إن وح والبا لعن الدنيا ده وحوا نصيب الحمد لله نصيب كان أنا ماشي أنا كاني وأنا كفر أحسننا فرحنا ونلقى بسنة تاجرة ملوا البيجوان والله حل عيرات كان أدو أتكا ويكوحين كدم ويس أدي اسكسو دياريين وانا موقتي هوريالك إن كم موقتي الحمد لله وح عرفوا ياشتك واحدة MCC أنا كان أقول لي السنة الحمد لله Horyaalka Muqdisho City ayaa kaalinta koowaad ku dhameysatay 36 dhibcood ay urursatay kooxda Muqdisho City 18 kulan oo ay ciyaartay waa kooxda guuldarooyinka ugu yar la kulantay waxaana ay la kulantay laba guuldaro oo kaliya waxa barbaro ay dhinacaasi ka yihiin kooxda kubadda cagta Horseed oo guuldarooyin badan aan la kulmin saddexdii xil ciyaareed ee la soo dhaafay hase yeeshee kooxda kubadda cagta Muqdisho City ayaa horyaalka hanatay Horseed kaalinta afraad ayay kaga dhameysatay kala horeynta horyaalka Premier League Soomaaliya waxaana isku dhibcayihiin kooxda kubadda cagta Elman oo 34 dhibcood ay wadaagaan heegan 33 dhibcood ayay ku dhameysatay horyaalka kaalinta shanaad ayayna kaga dhameysatay kala horeynta 5 gool ayaa looga adkaaday kulankii ugu dambeeyay horyaalka Soomaaliya iyadoo han weyn uu jiray ku guuleysiga horyaalka Soomaaliya 13 bilood uu ku sugan yahay Maxamed Lamjad Masari kooxda kubadda cagta Muqdisho City isla kooxdaasi ciyaartoyda u ciyaara waxa ay aad ugu faraxsan yihiin laylinta macallin Maxamed Lamjad Masari oo u dhashay dalkaasi Tunisia macalinka waxa uu ahaa mid kulamadii ugu horeeyay guuldarooyin barbaro la kulmayay kulamadii uu ciyaaray hase yeeshee ugu dambeyntii waxa uu soo rogaal celiyay horyaalka Premier League Soomaaliya in mar kale hoggaankiisa uu qabto ugu dambeyntii 13 bilood uu ku sugan yahay Muqdisho waxa uu kor u taagay koobka hadaba qaab nooce ah ay ciyaartoyda kooxda Muqdisho City ugu qanacsan yihiin macalinka kooxdaasi Maxamed Lamjad Masri macalinkan Tunisianka wallahi boqolkiiba boqol waa macallin aad iyo aad u fiican waa macallin aan dhihi karo waxyaabo badan ayuu nagu soo kordhiyay ficnaashiisa waxa ka dareemaysaa kubadii aan ciyaari jirnay ciyaarta quruxda badneed aan soo bandhignay wallahi boqolkiiba boqol waxaan soo bandhignay dadkana aaminsan yihiin xataa kooxaha naga soo horjeedo inaan ahayn kooxda ugu banooni qurxoon taasna waa macalinka aad iyo aad macalinka ugu mahad celinaya iyo anaga oo isfahan fiican na dhaxmaray macalinka taas ayaa sabab u ah marka Master Lamjad inuu ku guuleysto horyaalka wallahi macalinkii aad iyo aad u faraxsanahay shaqo adag oo qabtay hadduu shaqo adag hadduu qaban leen meesha ma imaan leen waxa meesha aan ku imaani waxa waa shaqada adag oo qabtay oo mar walba oo macnaha oo tareen adag oo siin jiray sa champion aan ku noqono maantana champion aan noqono mar walba waxaan rajaynaynaa inaan champion aan noqono waan naqaana sidii champion loo noqdo insha Allah aniga waa aabbahay oo kale Soomaaliya waa dalkayga labaad oo kale aad ayaan ugu faraxsanahay in halkan aan ku sugnaado Muqdisho City waa sidoo kale familkayga labaad runtii macalinkaas horta waxaan ku tilmaamo male runtii macalin walbo wuxuu wataa system asi u gooni ah runtii aniga macalinkii labaad oo ajnabi waayo aan ka soo hoos dheelo runtii labada macalinkaasna banoonigiisu wuxuu ahaa runtii dad macallimiin waxa jira long ball dheelo runtii macalinka waa macalin dabeecad fiican oo sidii kale asaga ahaan ciyaartooyda saaxiib ka dhigto runtii waxa meeshan lagu qaadanay sirta ka dambeysana asaga waay oo runtii nin ciyaartooy gurigiisa ka imaaday oo gurigiisa doo jiif la horyaal maqaad waxa walba juhdiga galiyay tababarku sameeyay waa meeshan ku gaarnay iti ilaahay alxamdulillah dadaal dheer kadib champion waa naqanay macalinkana waa macalin fiican runtiina waxaan rajaynayaa maamulkana macalinka inuu sanadkan sanado kale nala joogi doono insha Allah taala wallahi Maxamed Lamjad Masri waa ma sha Allah waa coach fiican ciyaartoydana aad u fahmayo waaye markuu macalinka yahay professional yahay meel badan ka soo shaqeeyay ciyaartooyda aad isku fahmayaan alxamdulillah waxa keenno waxa way maanta inaan sana u guuleysan isku xirnaantana macalinka keenay macalinkeena waa hambalyeynayna insha Allah waxa rajaynaynaa sanadaha soo socda inuu asilo macalin noo noqdo insha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore waa salaamantahay bahda SNTV marka xigo waxay noo tahay farxad inaan ku guuleysano horyaalka Soomaaliya Premier League naadiga dawladda hoose ee Xamar waxaan leeyahay isku duubni ay sameeyeen maamulka macallimiinta ciyaartooyda iyo taageerayaasha ayaa guushan lagu gaaray waxaan leeyahay dhammaan taageerayaasha kooxda Muqdisho City Club
ama naadiga dowladda hoose ee xamar meel kastoo joogaan waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo